halkani waa London oo idinkala hadlaysa laba muujidood oo gaaban 11 iyo 13. barnaamijkii suugaantee toddobaadkii hore waxa aad maqasheen intiinii dhegaysanaysay akhyaartana dhegaysatay qaybtii hore ee waraysigii hadalka iyo heesaha isugu jiray oo aan muddo dhowr iyo 10 sannadood laga joogo magaalada muqdisho kaga soo duubay fanaanka dalka Soomaalida iyo meelaha kale ee ay dadka Soomaalidu degan yihiinba caanka ka ah ee maxamed saleebaan tubeec oo sannadahan dambe ku nool dalalka Yurub. qaybtaas horena waxa uu inooga warramay siduu fanka ku soo galay iyo halkuu ka soo bilaabay oo magaalada Djibouti ahayd. waxaanu dhowr midba bayd iyo laba inooga qaaday heesihii ugu horreeyey ee uu ku qaadi jiray sannadihii 50-aadkii iyo 60-aadkii. waxaana sheekadu inoo joogtay tixo gabaya oo uu aabbihii saleebaan tubeec oo gabaya ahaa uu u tiriyey adeerkii oo uu taageero kaga doonayey mar la xidhay. marka bal hadda aan qaybtan labaad ku bilowno tixahaas gabayga waraysigaasina halkaas haynooga sii socdo. waxaa jirtay oo adeerkii u gabiyey oo waxaan reer berberaan ahaan jirnay. marka mar adeerkii uu gabiyey oo talebaankii baa la xidhay ingiriiska xidhay. markaasuu rabay adeerkii inuu u yimaado yani oo soo boqoto. markaasuu odhan jiray waan ku iman doonaa habeenkaas ku dhaxabo oon jiro fariin buu soo markaasuu wuxuu yidhi awxali sifaa duniyadii subax baa wacayne waxaad igu salaantaa beriyo sadan baan imaane bentiisadka laga dhigaad igu saabaysaay haysuufin hadalkaagu waa suniyo wabe waa markuu lahay anigoo ku imanayaa warba uu ku goynay. waxaa jiray ingiriiska ku xidhi jiray dadka silsilad bulugaa ka xidhi jiray ama gamaha qofkii laga dambeynto silsiladaas qof aniga la yaqaana ka dambeynto silsilada waa laga dhaafi jiray. markaasuu caliga inuu imanayso silsiladii kamuu dambeeyna saleebaankii markaasuu silsiladii baa ku xidhay markaas saleebaankii. marka wuxuu yidhi adimada birbaa igaga jaban agab la'aaneed egad baa la ii oodayo la igu eegaade ardaygaba haddaan macallin wadin ma aflaaxin diinde usha kulul haddaan lagu gubin erey ma yeeshiinde anigana sidii hori dumar edislaaye. waa gabay la yaab leh. jawaabtii markaa maxay noqotay? markaasuu odayga loo sheegay gabayadii. markaasuu markii gabayadii loo sheegay buu u yimid yidhi waa gabay buu igu bilaabay birbaba isagoo yaro. markaasuu u yimid oo bertii uu ka dambeyntayo uu u yimid. marka odayga gabayadiisa waa badnaa. xitaa waxaa jiray gabay oo nin u tiriyey la odhan jiray allah naxariisto xuseen reis odhan jiray siya sooriyada ka helay camal gobaadeed caqligu kaama guure malawaan iyo socone waago casaado shamsada coonka nagu keentay akasaar xijinka intii walba iyo cadiinkii magayadiisi ahaadu ma haya laakiin waa badnaa gabayadiis. marka odayga sidaa gabayaa u ahaa. marka waxaa la oran karayaa musigan iyo midhahan iyo heesahan aad samayso la yaab kale waa hiddo oo aabahaba kara. dabcan waa dhici karta waayo oo qofku waa inuu kolley waalidkiisa ku yeesha maxay oo xubno ka mid ah inuu ku yeesho way. hooyadaa ka warraniyo islaantu waa buraanburkay taqaanaa. waxaa jirta xataa gabay mar iyada islaanta qudheeda u tiriyo yidhi shaqalan ay sifaha duniya subaxba waacayne shaqalan ay haween male wanaag amase waayeele aniga waayadii hore sidaa igala weyneede anigu lama waaliye ninkaa waafi aan ahay bal iswaan xaajada halkan isku waayayno. buraanbur bay markaa yaro ugu jawaabtay. buraanbur ugu jawaabtay. ma ka xasuusata buraanburka bacad.